gabadhii wax ka raadiyo naagaysta uu ku soo booday hadda waa gabadhiisii sidii hadduu kugu sameeyo qayli markaas oo waxaan isla ognahay aabbow dheh oo asaga aabbow idaa dheh baaqaasaan isla ogaanayna marka meelaan ugu dhuuntay sidiisa aabbow waa soo booday tiri aniga asagoo ku kor fadhiya ayaan arkay gabadhiisa ayuu damciyey waxa uuna u tagay ku dhawaad 2 jeer isagoo xoog u adeegsanaya haddaba arrintan naxdinta leh ayaa waxa ka waramaysa hooyo Soomaaliyeed taas oo dacwo ugu timaaday sheekh Soomaaliyeed iyada oo ku oranayso sheekh waxaan doonayaa inaan ninkayga iga furto haddaba sheekhii ayaa su'aal ku celiyay waxa uuna weydiiyay sababta ay isaga furayda ninkeeda iyadoo markaasina uga sheekeeday qisadan xanuunka leh in ninkeedu uu damaaciyay gabadheeda uuna 2 jeer kufsaday gabadha oo ka xishoonaysa inay hooyadeed arrinkaasi la wadaagto ayay 2 jeer ku soo gaartay hase yeeshee markii saddexaad gabadha oo dul qaadan weysay ayaa hooyada la wadaagtay haddaba daawade waxaynu rabnaa inaan qisadan xanuunka badan idin la wadaagno waxa uuna sheekhu sidoo kale arrintan kaga sheekeynaya sababtii ka dambeysay in aabahaasi uu falkaasi ku dhaqaaqo haddaba warbixintan oo ah run ahaantii mid naxdin leh dhanka kalena u noqon doonto aabayaasha Soomaaliyeed ama inta doonaysa inay mar uun aaba noqdaan fariin cad taas oo ay digniin kaga qaadan karaan haddii ay sababta arrintaasi ka dambeeyda fahmaan inay iyaguna ka feejignaan doonaan ayaynu warbixintan ku eegi doonaa haddaba daawade ilaa warbixinta dhamaadkeeda ha naga tagin oo isku day inaad dhageysato maxaa yeelay adiga ayay faa'iido kuugu jirtaa oo arrintani haddii aadan maanta ka digtoonaan biri ayay kugu imaan kartaa run ahaantii arrinta ka dambeeyda falkaana waxa ay tahay sabab fudud oo inta badan dhalinyaradu ay ku dhaqmaan haddaba dhalinyaro haddii aadan maanta ka digtoonaan oo aadna fariintan aadna fahmin waxa ay noqon doontaa mid biri ka maalin idinkana idin qabsato haddaba intii aad noqon lahayd aaba ceeboobay fariintan dhameystiro oo ilaa iyo dhamaadka hay naga tagin haddaba daawade inta aan u gelin warbixintayda haddii ay tahay booqashadaadii ugu horreeyday ee channelkeena fadlan subscribe saaro si ayna kuu dhaafin muuqaalada iyo warbixinada halkan aan soo gelino sida aan horay idinkugu soo sheegaba aabahan ayaa waxa uu kufsaday gabadhiisa haddaba qisada waxa ay ku bilaabanaysaa wadaad ayaa waxa uu imaanaysa gabar waxa ayna u sheegaysaa inay ninkeeda dacwo ka tahay bal kilibkan inayaa in aad fahanteen warka sheekhu uu ka hadlayo haddaba sheekada gunteeda aanu galno sheekadan waxa ay ka waramaysaa aabe Soomaaliyeed oo gabadhiisa 2 jeer u tagay halka markii saddexaad isagoo damacsan inuu u tago ay gabadhii u dul qaadan weysay iyadoo arrintaasi hooyadeed la wadaagtay sida aan wada ogsoonahay gabar Soomaaliyeed kuma dhiiran karto aabahay ayaa i kufsaday subxaanallah gabdhaha Soomaaliyeed waa gabdho inta badan xishood badan mana suurta galayso inay ku dhiiradaan aabahay ayaa i kufsaday xataa iska dhaaf aabaheeda haddii xataa nin kale oo aan aabaheed ama qaraabadeeda ahayn xataa uu kufsado lagama yaabo inay ku dhiirato haddaba arrintan naxdinta leh ayaan rabaa inaan u sii guda galo waxa ayna qisadani ku bilaabatay hooyo Soomaaliyeed ayaa waxa ay u imaanaysaa sheekh caana waxa ayna ku leedahay sheekh waxaan doonayaa ninkayga inaad iga furto aniga iyo ninkaygu waxaan doonayaa inaan kala tagno waxa ayna sidoo kale leedahay sheekh ma igu xiran yahay ninkan haddaba sheekhii ayaa weydiinayo sababta ay doonayso inay ninkan isaga furto waxa igu qisoonayda qisadii waxa ayna leedahay sheekh ninkaygu waxa uu damaaciyay gabadhayda anigoo waliba xaaskiisa ah waxa uuna gabadhii anigu aan u dhalay ee xalaashiisa ahayd 2 jeer uu damaaciyay halka markii saddexaad isagoo damacsan aan ku qabtay waxa ayna uga waramaysaa sheekha kaartadii ay ku qabteen ninkan sida ay sheegtay gabadha aabeed oo xanuunsanaa oo aan gadaal ka sheegi doono sababta ka dambeysay xanuunkiisa ayay hooyadu waxa ay ka cusatay inay aabaheed u qubaydo hase yeeshee gabadhii markii ay damacday inay aabaheed u qubaydo ayuu ku soo booday waxa uuna ku kufsaday halka markii koobaad gabadhii ayaa arrintii la xumaatay inay dibadda u soo saarto waxa ayna ka qarisay hooyadii aan u sii gudagalna sheekadaani markii labaad ayuu sidoo kale ku sameeyay gabadhii iyadoo u qubaynayso gabadhii ayaa wixii markaasi ka dambeeyay arrinta ku cuslaatay waxa ayna u dul qaadan weyso waxa ku dhacayo maadaama dhibkan uu kaga imaanaya aabaheed waxa ayna hooyadii la wadaagtay arrintii haysatay hooyadii ayaa arrintaasi rumaysan weyday waxa ayna ku tiri gabadhaydii waxaan doonayaa inaan arrintan hubino markii aan anigu xaqiiq ka helo ayaan ficil ku dhaqaaqi karnaa haddaba hooyadii iyo gabadhii ayaa waxa ay diyaarinayaan markaan qorshe ay ku ogaato hooyadu inuu aabuhu damaaciyo gabadheeda haddaba hooyadii ayaa waxay u sheegtay gabadha in ay iska dhigaydo qof banaanka adeeg u doontay waxa aanan isku qarinayaa ayay tiri qayb ka mid ah guriga hase yeeshee marka inaan baxaan iska dhigo ayaad u tagaydaa aabaha waxaadna ku leedahay inaan kuu qubeeyo ayaan doonayaa markii uu kugu bilaabo hawsha aad ii sheegaysane waxaad leedahay aabbo uga dhaaf waad qaylinaysaa dabadeedna aniga ayaa u soo baxaya oo banaanka imaanaya naxdin weynaa haddaba waxaa dhacday in
aabihii xanuunsanaa gabadhii markii ay maagtay inay u qubayso inuu ku soo booday waxa ayna gabadhii u qaylisay hooyadii oo durbaba meeshii ka soo baxday ayaa waxa ay dul timaaday ninkeedii ama gabadha aabaheed oo gabadhii dul jiifa labada rugoodna xagga uga kala ritay hooyadii ayaa naxdin yaabtay waxa ayna ku tiri dulli ayaa tahay ilaahay kama cabsatid anigay adiguna maanta ayay noo kala furan tahay haddaba hooyadii ayaa waxa ay u timaaday shiiqan waxa ayna uga sheekaynaysaa sababtii ka dambeysay in ninkani uu damaaciyo gabadhiisa halkaas inay hawadiisu gaarto sababta ka dambayso ayay shiiqii u sharaxaydaa waxa ayna sheegtay in ninkeedu uu daawan jiray filimaanta xunxun waxa ayna sheegtay inay markii koobaad ku aragtay oo ay uga digtay waxa ayna ku tiri walaalow waxaan jooji wuxuu ku yidhi waan joojinayaa dabadeed haddana waxa ay ku aragtay mar labaad isagoo ilmaha ku dhex daawanaya waxa ay ku tiri walaalow haddaadan joojinayn ilmaha kala dhexbax oo waxaan ka qari ilmaha haddaba waxa uu ku yidhi mar dambe ma daawan doono haddii aniga oo daawanaya aad ugu aragtana waxaad iga erisaa guriga oo waxaad ii dhahdaa guriga iga tag haddaba sidaasi xaalka oo maraya ayaa aabihii haddana waxa ay ku aragtay mar saddexaad wixii halkaasi ka dambeeyey aabihii ayaa xanuunsaday haddaba ila daawo qaybtan yar ee shiiqu ku sheegayo sababta ka dambaysa ninkani inuu halkan soo gaaro xanuunkani ku dhaco waxaan yacni sabab u ahay tiri oon ogahay filmada xunxun uu fiirsan jira liannahu filmadan xunxunkaa la fiirsanayo aflaamta ibaaxiga ah waa virus dilaa ahoo diintaaday dilaya akhlaaqdaaday dilaya raganimadaday dilaya waxay kaa dhigayaan shahwadaada shuduud jinsi ay kugu abuurayaan wax la yidhaha shuduud jinsi waxaa loo yaqaan shahwada inaad ka raadiso meesha ilaahay uusan ugu talagelin haddaba aabbahan ayaa markii uu joojin waayay filmaantan xunxun uu daawanayo waxaa ku dhacay cudur waxauna cudurkii u noqday qof aan awood u lahayn inuu qubaysto haddaba sida aan qisada qaybtooda hore idinkugu sheegnay hooyada ayaa waxa ay ka codsatay gabadha inay u qubayso hase yeeshee meeshii la rabay inay noqdaan gabar aabaheed caawinayso ayuu aabihii waxa uu damaacinayaa gabadha maxaa yeelay filmaantan dadka qaaqaawan ee la daawado waxa ay keenayaan inay qofka hawadiisa lumiyaan qofka waxa ay ka dhigayaan damaacigiisu inuu sarreeyo ma dabooli karto xaaskiisu xitaa 4 xaas ma dabooli karto waxa uu qofkaasi noqonayaa in shahwadiisu badato mararka qaar waxa uu damaacinayaa xoolaha waxa uu damaacinayaa ilmihiisa waxa uuna cudurkan ugu dhacayaa si maskaxiyan ah laakiin si jismiyan maahan qofku waxa u baahan yahay si maskaxiyan ah qofku waxa u baahanayaa maskaxiyan dareen ah waxa uuna meel walba la aadayaa dareenkiisa mana noqonayo qof isxakameyn kara haddaba dhalinyarada barnaamijkan daawanayso waxaan fariin cad ugu dirayaa in ay ka digtoonaadaan muuqaaladan xanuunka leh run ahaantii waa muuqaalo qof kasta oo daawada qalbigiisa dhaawac u geynaya run ahaantii waa muuqaalo daawashadooda marka hore aad u arkaysa inay yihiin wax relaxi ah balse kugu noqonayo wax cudur ah waxa ayna qofka ku reebayaan cudurro waaweyn taas oo sababi karta